Bismillahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada Mephistarin. Maanta waxaan qaadanaynaa ciwaankan sidee qalinka loo qabtaa ama how to hold the pen. Ciwaankan waa muhiim ustaad inaad qalinka qabashadiisa taqaano. Ardaydu waxyaaba ay ku dhiban yihiin waxaa ka mid ah inay qalinka nooca loo qabto si fiican u qaldayaan. Marka soo dhawow, nala daawo, nala dhageyso, waxna ka faa'iid insha Allah. Waa lagu kala duwan yahay marka la dhaho bini'aadamka nooca wax loo qabanayo. maxaa yeelay ilaahay isku qaab uma uumin xubnaha kala goosyada iyo murqaha sidoo kale lafaha bini'aadamka iyo nooca u dhaqaaqaya. Marka arday walba ama macallin walba waxaa jirta marka qaab uu qalin ku qabto. Laakiin in general waxaan qaadanaynaa nooc guud oo qalimaanta loo wada qaban karo. Macnaha haddaad ku celceliso yaad baran karto. Marka ustaad qalinka horta markii la qabanayo fartu waxay ka dhaqaaqdaa dhowr meel sida qaybta gadaale ama cogta oo naqaano iyo kala goosyadan hore oo lafo ay leeyihiin. Sidoo kale suulka wuxuu taabasho ku leeyahay far walba afkeeda sida inuu far walba taaban karo asaga. Yes. Hadda waxaan soo qaadanaynaa qalinkan oo kale. Waad qabatay, waad haysaa. Soma xaglahaada markaad qalinkaas hayso far walba xagal ay qalinka ku haysaa marka in xagal hay laaban tahay ilaa farta faryareeda la dhaho maahan oon wax saameyn ku lahayn ilaa hayntaas mooyee. Marka waan dhaqaajinaynaa. Yes. Waan dhaqaajinaynaa. Sabab way noo ogol yihiin inaan dhaqaaqno faruhu. Qaybta kursiga aan ka saarayna ha ahaato oo miiskas damba yaa awood xukun ku leh ka ina iska hagaajiso marka hore haddana xaglahan aad ku qabanayso inaad si fiican u hagaajiso. oo faraha xaglahooda aad saxdo ustaad. Hadda marka xagash ugu weyntaa waa saas 180 aan lahaa xagashaas kanna waa san marka xagash ugu weynta. Haddaad laabtid xagash waad si yareynaa. Fartaada had wax yar laabto xagash way yaraanay. Yes. Kan way yaraanay suulkan xagashiisu. Okay. Marka xaglahaas yaa xukumaya nooca qoraalkaagu noqonayo iyo ama dhaqdhaqaaqa xurriyadda aad u yeelanayso. Waa la kala dadaal badan yahay sababtoo xaglahana la kala xukum ogeey ustaad. Hadda qalinkaan haynaa waxaan ku haynaa gacmahanaga xagla kala duwan ku hayaan. Xagal angle ama xagal saa u taqaanidba iyo ku hayaan. Waxaa haysa horta qalinkaan 3 farooda toos u haysa iyo caawinta fardhaxada ku xigta oo far caawin ahaan u haysa ayaa 3 faroodaasi directly u hayaan ama toos ah. Marka waa dadaalsi kartaa mar haddii xagluhu ku xukuman yihiin. Okay. Qoraalkaada waa bursin kartaa. Qoraalkaagu wuxuu noqonaa qoraal hagaagsan. Hadda meeshan tusaale waxaa marka hore noo weynaa xagasha oo ku fadhiso gacanta murugsatada loo yaqaano gacanta xagasha ku fadhiso yaa noo weynaa. Hadda waxaa noo weyn gacanta xagasha oo ku fadhiyo suulka ustaad. Marka labadooda xaglood ha isla ekeyn. Hama wada fidin ama ha wada laabin. Labadooda mid yare waa suulka iyo farmurugsatada. Labadoodaas mid yare ka bacdi qalinkaada xurriyadu u helaya. Okay. Inuu dhaqdhaqaaqo. Hadda tusaalooyinka qalimadan aan u soo qaadanayna waxay yihiin waa la kala duwan yahay heer ahaan. Okay. Oo heerka lagu kala duwan yahay. Marka mid walba ku baraaway xagluhu islama eka gacanta suulka iyo farmurugsatada islama eka. Haddana mid kale qaybta amiiska ama ku qoris ama korkaaga ama suxulkaaga meel ha saarin asagu banaanka ka yaal. Yes. Okay. Aad ma loo fahmay. Hadda tusaale qalinkan fiiri. Waan haynaa faraha 3 afkooda horaan keenayna. Waxaan isu saaraynaa marka suulka iyo farmurugsatada kuwa ha kala dheerayn. Hadda xagasha waxaa yar ustaad suulka yar xagal ahaan. taa waxay ana isiinaysaa xorriyad ah inaan si fiican wax u dhaqaajiyo. Marka insha Allah ku celcelsha waad baranaysaa.